saddex samee si aad u ogaato inaad muhiim u tahay qofkaas iyo in kale. waxaad ku ogaanaysaa qofkan inuu ku jecel yahay amasna kuu xiisaayo, iyo inuusan ku jeclayn oo aan kuu baahnayn adiga. arrimahan sameey si aad u kala saarto waadna ogaato xaqiiqada dhabta ah. aan bilowno muuqaalkeen. Number 2, ha wicin muddo 3 maalin ah. Number 2, fariin ha u dirin 3 maalin. Number 3, hana tusin wejigaaga 3 maalin. marka hore dhammayso muuqaalka si aan kuugu sharaxo sababaha aad arrinkan u samaynayso. Number 2, haddii aadan 3 maalin wicin, qofkaasi wuu murugoonayaa, una kuu xiisaaya codkaaga iyo sheekadaada. qofkaas ayaana dib kuu soo wacayo, laakiin hadduu ku jeclayn kuma soo wacayo. Number 2, haddii aadan wicin haddana aadan fariin u dirin, way ka sii weynaanaysaa arrintii kore oo qofkaas aad buu sii murugoonayaa. laakiin waa hadduu ku jecel yahay, wuuna ku weydiinayaa waxa qaldanaa oo aad la wici weysay, fariinna aad ugu soo diri weysay. 3, sidoo kale haddana aanan wejigaaga la arag muddo 3 maalin aadan wicin, fariinna aadan u dirin, aad buu murugoonayaa qofkaas. wuxuuna dareemayaa walwal, uuna ku soo xiriirinayaa isagoo ku weydiinaya waxa dhacay. wuxuuna kuu sheegi doonaa inuu aad kuugu xiisay, laakiin waa hadduu ku jecel yahay qofkaas. halka qofka aan ku jeclayn intaas oo dhan ma samaynayo. waa laga yaabaa inuu mar un ku soo waco, laakiin waxyaabaha keli korkaskama saarayo. I hope in muuqaalku waxaan kuugu soo kordhiyay. Until muuqaalkeena xiga saaxiibayaal, qey